فريست حق لو جرا diyaarad buu ku yimaadaa ma aan dili jirin anaga dadka yaani sidaas uma dhigayna anaga the accusation maxkamad baad meesha sheekh ka furtay horta barasho wana xaqiiqadii xasan daahir aways waxaan u arkaa ilaa iyo xasan oo wax kale la yimaado annaga waxaan ogaan xasan oo shabaaba oo diriirahaya annaga ilaa aan aragno xasan oo la yimaada wixii uu ku jira wax ka duwan oo statementiya aniga xaggayga dambiilo ka yahay laakiin wuxuu dambiilo ku yahay dagaalad ku wada jiri jirteen adigii isagu muqdisho wad ku dagaalanteen dagaalo kale fara badan oo adiga laftaadu ka qayb qaadatay baa jira marka hadii dagaal la galay dambiilo lagu noqonayo miyaanad adiguba dambiilo ahayn ma ahan dagaalka aan galna ma ahan midka dadka shacbiga Soomaalida lagu xasuuqayo ma ahan marka laguma compare gareyn karayo lama barbar dhigi karayo dagaaladii Soomaaliya ka soo dhacay 20 sano oo beelaha Soomaaliyeed dadka wad dili jirnay iskuma qarxin jirin ma aan dili jirin anaga dadka yaani sidaas uma dhigayna anaga hali waxa jiray shir G8 ku ay ku qabanayeen wadankan aynu joogno North maxamed Ireland magaalada Belfast oo Xasan Sheekh Maxamuud lagu marti qaaday sida la sheegay oo isaga laftiisu ii sheegay maraan kula kulmay hotelka uu London uga soo degay haddana waxa muuqatay inaanu shirki ka qayb galin oo uu ka noqday interview aad ku bixisay Americana waxaad ku sheegtay in loogu diiday inuu xiriir la leeyahay qoryaha shabaabka wala arintan noo faahfaahay Abdikariino haddii aad waxa aad hibanaysaa ay tahay to put me on the spot adigay ku shaqadaada ay tahay waxa dhabta waxan ka ah inaad ogaatid aday professionally mas'uuliyadaada aniga shaqada layma dirin dad badan oo ree khaatuma ah oo aan la sheekaystay baa waxay ii sheegeen inay G11 ku ay siyaasadahan uga faa'iideysanayaan khaatumo oo aanay gudaha inay tagaan oo ay shaqo qabtaan oo ay maamulka dhismihiisa ka qayb qaataan oo ay sidii ay ahayd wax u fuliyaan rabin arinta wax ku dar the accusation maxkamad baad meesha sheekh ka furtay horta barasho wana halkan aynu ku jirno waxaan nagula jira nin dawladda Uganda ka socda oo ciidamada AMISOM kamida maadaama aad tahay mas'uul Soomaaliyeed oo hay hawl qaran aanan ognahay adduunyadu sida ay sirta iyo u kala qarsato waxaana la ii sheegay madaxweynaha laftiisa in xafiiskiisa oo laba nin oo Ugandese ay waardiyaashiis ka mid yihiin Soomaaliya boonaateen aan og nabadgelyo darrada wadanka ka jirta iyo aamin darrada lafteeda in raggan ajnabiga ah ilaaladoodu ay dibadda ku ekaato oo gudaha rag Soomaaliya reerkaaga waxa ahaadaan ay kugula jiraan dadkan waxay qaabilseen amnigaas xagga waxa uu heshiisay dawladda la gashay hal dumarka inta joogan adiga oo kale markaad joogto way qalabkan u joogaysa ay soo iimaanay laakiin inta kale banaanka jooga gudaha kuma jira laakiin markii qalabayntan waxaan ay yimaadaan gudaha shaqada security may hawsha ay hayaan miyaan qof Soomaali qaban karin karaa laakiin hadda ilaa hadda eega hadda haystay waxaan rabaa inaan magaalada Muqdisho waan tagay waxay ahayd waliba markii mooshinka ay xildhibaanadu keeneen mudaharaad baa ka dhacay magaalada waraysi aan mar dhexdaas la yeeshay Cali Khaliif Galeer wuxuu ii sheegay iyagoo 120 xildhibaan ah inay maalin damceen inay meel ku qadeeyaan oo madaxtooyadu u diiday inay isarkaan oo maqaaxidii laga xirtay mudaharaadkii aan joogay oo aan marxaatiga ka ahaana waxaa ku arkay in xildhibaanadu markay mooshinka keeneen la aflagaadeeyay oo la yiri meena keenad la mid yihiin xildhibaanada mooshinka keeneen intooda badani waxay ahaayeen xildhibaano aan Muqdisho ka soo jeedin marka bal arinta wax ka dheh maxaa ma dhankay in dawladda ay diiday mise horta wixii xildhibaan ah dawladdu marnaba ma istaajin meel lagu kulmo mana istaajiso mana istaajinayso intaas eedeen wax ka jirto ma aha idaacadaha aad sheegtay waa idaacado local ah oo magaalada Muqdisho laga leeyahay xildhibaanada 120 ka ay Cali sheegay iyo kuwii lagu mudaharaaday oo mooshinka keenay ma ahan xildhibaano magaalada degan marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaan aan magaalada deganeen ma arag ani magaalada deganeen magaalada ka yimid diyaarad buu ku yimaadaa maalin walba magaalada ka yimid ma aha
waxaan rabaa inaan waxaad ogtahay in dood badani ka taagan tahay oo xitaa cabasho ay dastuurka uu ka keenay Faroole Puntland in maaragtay laga saaray qodob ka hadlayay magaalada madaxda dood badan baa ka taagan magaaladan waa magaalo Soomaaliyeed dhiig iyo dhidid Soomaaliyeed bay qabtaa Muqdisho fahmaysa dhiig baa lagu dhisay dhidid baa lagu dhisay ilaa waqtiga isticmaalka Soomaaliya isugu soo urureysay oo nin walba 40 shilin oo helo keenayay marka in xildhibaanadii dadka matari oo beelaha kale iyo gobolada kale ka yimid markay Muqdisho yimaadaan lagu handado oo ay shiri waayaan wax loo qaateen oo la aqbali kara ma tahay waxay ila tahay fariin kale aad u socotaa saan isleeyahay maalweyn bii fidinaya wadadka naga waalaya tabaka waan qabanaba way dadku waxay arkaan madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda gudoomiye xisbiga wadani intuna waa beel qura halkay arintu ka qoranto waxa weeye naga garheeray waxa weeye marka Washington la tagay siyaasadahan waxaad aaminsan tahay in Somaliland goodo ninka reer Somaliland ee halka aad ku dhalatay kugula dhashay ee laakiin siyaasadiisu aaminsan tahay in Soomaaliya la kala goyn maxaad cadaawad ugu qaadaan Somaliland looga eriyaa waa dambiili okay kuwa waxaad ka warantaa tusaalahan khaatumo oo kale ama maakhir ama waxa jira group iyaguna la magac baxay Awdal State kuwa maxaad ka waran lahayd doorta mashkiladu waxa weeye adigu ma ogasha xisbigaaga in dhulbahantaa maanta uu istaago sida aad uga doonaysaan Soomaaliya inay idinku xushmayso fikirkiina inaad ka go'daan maxaad ugu xushmayn laadihiin khaatumo iyo maxaan idhaahdaa maakhir iyo Awdal fikirkooda iyaguna inay Soomaalilandnimada ka baxaan Faysal hadda koor waxaa jirtay inaad tiri qofkii Soomaaliya magaceeda laga maqlo carabka hal la jaro aan kula kaftamay maanta adaa madaxweynaheedii la fariistay xagga lagu jaraa